Assalaamu calaykum madax xanuunka. Ciwaankeena maanta wuxuu ku saabsan yahay madax xanuunka, noocyadiisa, sababaha iyo daaweynta suurtagalka ah. Haddii aad doonaysid ka bogasho wacan. Madax xanuunku waa mid ka mid ah cabashooyinka caafimaad ee ugu badan adduunka oo dhan oo saameeya dadka da' kasta leh. Inkastoo ay dadka qaar u noqon karaan kuwo fudud oo degdeg ugu raysta, waxay kuwo kalena u noqon karaan kuwo ku daciifa oo ku daba dheeraada. Fahamka noocyada kala duwan, sababaha iyo fursadaha daaweynta ee suurtagalka ah waxay awood u siin karaan shakhsiyaadka in ay maareeyaan oo ay yareeyaan calaamadaha madax xanuunkooda si wax ku ool ah. Noocyada madax xanuunka halkan waxaa kugu soo bandhigi doonaa 4 nooc oo madax xanuun ah. Waxaad ogaataa cudur walba in uu leeyahay madax xanuun u gaar ah sida dhiig karka oo kale, laakiin anigu kama hadli doono cudurrada waaweyn iyo madax xanuunadooda. Waxaan kaliya halkan kugu soo gudbin doonaa hadeertaan madax xanuunada iska caadiga ah. Nooca koowaad madax xanuunka tensionka. Kuwaani waa nooca ugu badan ee madax xanuun oo lagu garto caajis dareemo xanuun ah oo ka yimaada labada dhinac ee madaxa. Waxayna inta badan dareemaan dadka sida in xariga madaxa looga dhoojinayo oo kale. Waxayna keeni karaan ama kicin karaan walaaca, qaab-xumada iyo cadaadis isha ah. Nooca labaad madax xanuunka migraine. Madax xanuunku waa mid daran, madax xanuun badan oo ay la socdaan lalabo, matag iyo dareenka iftiinka iyo dhawaaqa. Micnaha qofka wuxuu dhibsanayaa leerarka ama codka. Waxay socon karaan saacado ama xitaa maalmo, waxaana la rumaysan yahay in ay ku lug leeyihiin isbeddellada kiimikaad ee maskaxda iyo socodka ama qulqulka dhiigga. Nooca saddexaad madax xanuunka clusterka. Madax xanuunka clusterka waxaan filayaa kan qura aan Soomaali u heli karo waaye. Waxaa loo yaqaanaa goonjab. Qofka hal dhinac ayaa madax xanuunaya. Tani waa madax xanuunka ugu daran oo ka dhaca koox ama badanaa hal dhinac oo madax ah. Inta badan waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin kuwo fiiqan ama wax mudaca qofka in uu madaxa ka mudayo oo kale. Waxayna socon karaan daqiiqado ilaa saacado. Madax xanuunka clusterka waa dhif laakiin aad u xanuun badan. Nooca afraad madax xanuunka sinuska. Madax xanuunka sinuska ayaa ka dhasha caabuqa ama caabuqyada sinusyada badanaa waxaa sababa hergab ama xasaasiyad. Sinuska sawirkiisa halkan ayaa idiin soo dhigi doonaa. Waa dulduleele ay hawo ku jiraan. Hawo waxaanan ahayn haddii ay galaan ama caabuq uu ku samaysmo qofka waxay u keeni karaan madax xanuun aad u daran. Waxay caadi ahaan keenaan xanuun iyo cadaadis ku wareegsan indhaha, wejiga, dhabanada oo inta badan ay la socdaan sanka oo ciriiri ah iyo dheecaan ka yimaada. Sababaha madax xanuunka. Sababta koowaad cadaadiska ama kacsanaanta. Cadaadiska shucuureed welwelka waxay ku horseedi karaan ama keeni karaan madax xanuunka khaasatan tensionka, iyagoo keenayo kacsanaanta murqaha, qallafsanaanta qoorta iyo garbaha iyo madaxa. Sababta labaad isbeddellada hormoonada. Isbeddellada hormoonada gaar ahaan haweenka waxay kicin karaan madax xanuunka loo yaqaano migraine-ka. Dumar badan ayaa dareema ama la kulma madax xanuunka migraine-ka ee la xiriira wareegga caadada, uurka ama menopause-ka. Menopause-ka waxa waaye markii dumarka ay da' gaaraan oo ay caadada ka joogsato. Sababta saddexaad arrimaha deegaanka. Arrimaha deegaanka qaarkood sida ur xooggan, nolol dhalaalaya, dhawaaq dheer ama isbeddelka qaababka cimilada waxay kicin karaan madax xanuun shakhsiyaadka ama dadka u nugul. Sababta afraad habnololeedka liita, hurdo la'aanta, fuuqbaxa ama biyo cabis la'aanta, ka boodista cuntada. Quraac, qado, casho ayaa ka boodaysaa ama quraacda ayaa cunaysaa, qadada ayaa ka boodi, cashada ayaa u boodaysaa. Isticmaalka xad dhaafka ah ee kafeega iyo isticmaalka xad dhaafka ah ee aaladaha elektarooniga ah ayaa dhammaantood gacan ka geysta madax xanuunka. Daaweynta ama maareynta madax xanuunka. 1. Daawooyinka ka hortagga. Daawooyinka ee bilaa dhakhtar la'aanta ama dhakhtarka aanan kuu qorin oo aad u qaadan karto madax xanuunka sida ibuprofenka, acetaminophen ama paracetamol waxay inta badan ku siin karaan in aad dareento nasasho ama caafimaad ee madax xanuunka fudud ama dhexdhexaadka ah. 2. Daawooyinka dhakhtarka. Madax xanuunka aad u daran ama daba dheeraaday. Daawooyinka dhakhtarka qoray sida triptaniska ama daawooyinka ka hortagga ah ayaa laga yaabaa in ay lagama maarmaan noqdaan. Waxaa lagama maarmaan ah in aad la tashato xirfadle caafimaad si loo baaro iyo daaweynta habboon. 3. Isbeddelka hab nololeedka. Qaadashada caadooyin ama samaynta caadooyin qaab nololeedka caafimaadka qaba sida in la sameeyo jimicsi joogto ah, maareynta diiqada ama carrada iyada oo loo adeegsanayo farsamooyin nasasho ah ama daaweynta.
ilaalinta cuntada isku dheelitiran, joogtaynta cabista biyaha, helidda hurdo kugu filan waxay kaa caawin kartaa ka hortagga iyo yaraynta madax xanuunka. 4. Daawooyinka beddelkooda. Dadka qaarkiis waxay ka helaan nafis madax xanuunka iyadoo loo marayo daawooyin kale sida dhirta, iyadoo cilmi baaris badan oo dheeraad ah loo baahan yahay si loo xaqiijiyo waxtarkooda. Gabagabadii, madax xanuunku waa arrin caafimaad oo caadi ah, laakiin inta badan la maarayn karo marka la fahmo noocyada kala duwan, sababaha, fursadaha daawooyinka ee suurtagalka ah. Shakhsiyaadka waxay qaadi karaan tallaabooyin firfircoon si ay u maareeyaan madax xanuunkooda si wax ku ool ah oo ay u wanaajiyaan tayada guud ee noloshooda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lama huraan ah in aad la tashato xirfadle caafimaad si loo ogaado cudurka saxda ah iyo talooyinka daaweynta ee gaarka ku ah. Halkaas ayuu inoo yahay ciwaankeena. Waxaa inoo balan ciwaanka xiga hadduu alla idmo. Khayr badan.